kulan wanaagsan daawadayaal halkani waa 5TV aniguna waa Maxamuud Xasan Idaaja aniguna waa Foos Ciid ku soo dhawaada qodobada wararka ugu doorka roon ee caawa shirka madaxda dawladda federaalka dawlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta ka furmay xirada Afisyooni hadalkooda daboolnayo dadka aan ka qari jiray baan daa ka rogayay Soomaaliyeey dareen ma leeyihiin dib u heshiis dib u eega daaraha burburiyay caalamka deebayso dib u eega masaakiinta dibidaha jirta ee daayacnimadeena dulku guur waxay naga dhigisay dawlad laama shacabweynaha ku kala nool magaalooyinka Muqdisho iyo Boosaaso ayaa aragtiyadooda ka dhiibtay shirka maanta ka furmay magaalada Muqdisho iyo waxa laga rajayn karo dibadbaxyo rabshado wada isla markaana keystay qasaarooyin kala duwan ayaa ka dhacay magaalada Bristol xubinta ciyaarahana waxa aad ku daawan doontaan macallin Birlo oo shaki la gelinayo shaqadiisa macallinnimo ee kooxda Juventus kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu doorka roonaa daawadayaal haatan se u diyaar garooba daawashada warkii oo dhan isku soo noqod wanaagsan daawadayaal shirka madaxda dawladda federaalka dawlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta ka furmay xirada Afisyooni sida warbixintan uu noogu eegayo Cabdifataax Muumin Ilkacase halkan oo ah xirada Afisyooni gaar ahaan teendadii lagu doortay madaxweynaha mudxuleedkiisu ilaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa maanta kulan ku yeeshay madaxda maamul goboleedyada qaarkood madaxda qaranka iyo sidoo kale madaxweynaha mudxuleedkiisu ilaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa halkan waxa uu ugu furmay shirkii hordhac u ahaa shirka looga hadli lahaa arrimaha doorashooyinka dalka iyadoona ay markaasi ay ka maqnaayeen shirka madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland wasiirka warfaafinta xukuumadda xilgaarsiinta Cismaan Abi Kurdube oo warfidiyeenka halkan kula hadlay ayaa sheegay in shirka maanta furmay oo ahaa mid hordhaca isla markaana looga hadlay arrimaha doorashooyinka dalka iyo sidii loo dhameystiri lahaa heshiiskii 17 September ay wada gaareen maamul goboleedyadii gobolka Banaadir wasiir Dube ayaa sheegay in maalinta bariyaha shirka la soo gabagabeyn doono isla markaana la filayo sida uu sheegay in ay ka soo qayb gali doonaan madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland kuwaas oo maanta ka maqnaa shirkii hordhac ahaa maanta ee ka furmay teendada Afisyooni oo ahayd halkii lagu doortay madaxweyne Farmaajo waxaanu maanta rabaa halkan inaan dadweynaha Soomaaliyeed aan kula wadaago shirkii maanta ka furmay Afisyooni Center maanta oo Isniina 22 Maarso 2021 shirka oo u dhaxeeyay madaxda dawladda federaalka ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka iyo gobolka Banaadir oo maanta halkan ku kulmay waxa ujeedadiisu ahayd si aan baqaadista sidii loo hirgelin lahaa heshiisyadii 17 September ee Muqdisho iyo 16 Febraayo 2021 ee Baydhabo ee gudida farsamadu ay soo diyaariyeen waxa ka soo qayb galay dhammaan qaybihii la casuumay ee madaxweynuhu casuumay marka laga reebo dawlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo madaxdoodu aan iman intii kale haday tahay madaxda dawladda federaalka iyo haday tahay madaxda madaxweynayaasha dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka iyo gobolka Banaadir dhamaantood way wada joogeen iyagoo diyaar u ah sidii loo ayidi lahaa heshiisyadii hore loona qaadi lahaa dalka u doorasho waadi lahaa shirku wuxuu ku furmay hordhac iyo barbilow fiican madaxdu waxay bilaabeen 9 subaxnimo hadda ayuu soo dhamaaday waxana lagaga hadlayay waxaan la yiraahdaa ice break
in marka hore la isqalbi xaadho oo la wada hadlo oo si loo gundadago ajandaha oo ah ayidida heshiisyadii 17 Sebtembar iyo 16 Febraayo. Shirku wuu sii socon doonaa, wuu furmay maanta, waa just only waa furitaan, wuu sii socon doonaa. waxaanu ugu baaqaynaa oo aanu filaynaa rajaynaynaa madaxda ka maqan shirka ayaan maanta imanin inay ka soo qayb gali doonaan insha Allah taala haddii Ilaahay ka dhigo berito si shirku halka inooga sii socdo dalkanina uu aado doorasho arrimihii inaga qabyada ahaana ay inoo dhammaystirmaan qof walibana statekiisa aado si uu kursigiisii iyo doorashadeedii uga qayb qaato. muddo 4 sano kadib waa markii ugu horeysay xindaabka garoonka Aadan Cadde gaar ahaan xerada Afisiyoni oo teendadii lagu doortaa madaxweynaha madaxweynaha uu ilaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka furmo shir looga hadlo aayaha Soomaaliya iyadoo shirkan muddo dhowr jeer madaxweyne Farmaajo uu ku dhawaaqay balse uu isu suuragelin kadib markii maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ay sheegeen inaysan ka qayb gali doonin shirka uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo balse warar aan helina ayaa sheegaya in sawaha aysan ugu qaybgalinay tahay kalsooni inaysan ku qabin amniga goobta lagu qabanayo iyadoo ugu dambeyntii halkan lagu ballamay balse maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland horaantii toddobaadkan uu madaxweynuhu ku dhawaaqay shirkii lagu ballansanaana oo maanta inuu furmana aysan ka soo qaybgalin lamana oga bari inay ka soo qaybgali doonaan shirkaasi. Cabdifataax Muumin 5 TV teendada Afisiyoni Muqdisho. hay-adda Hormuud Salaam Foundation ayaa lacag gaaraysa $50,000 waxay ugu deeqday abaraha ka jira gobolka Gedo. Safo Cusmaan ayaa mar kale ka waramaysa. Hormuud Salaam Foundation oo looga bartay inay gacan ka geysato xaaladaha adag ee la soo gudboonaada dadka Soomaaliyeed ayaa maanta $50,000 Mareykanka ugu deeqday gurmadka abaaraha ee ka jira gobolka Gedo. Hormuud Salaam Foundation waxa ay $50,000 oo Mareykan ah ku wareejisay Al Rahma Foundation oo ahayd hay'ad maxalli ah oo ka shaqeynaysa gobolka Gedo haatan biyo dhaamin iyo gurmadna ka wada gobolkaasi. munaasabada lacagta lagu wareejinayaa maanta lagu qabtay xafiiska Salaam Foundation ee magaalada Muqdisho. ugu horeyn waxaa ka hadlay goobtaasi maamulaha Hormuud Salaam Foundation Cabdullaahi Nuur Cismaan oo tilmaamay in gurmadkan uu qayb ka yahay kaalmada Hormuud Salaam Foundation markasta la garab taagan tahay bulshada Soomaaliyeed. waxa uu sheegay in deeqdan aysan noqon doonin midii ugu dambeysay horeyna ay gacan ugu geysan jireen markasta oo xaalad adag ka soo gudboonaato gobolka Gedo. waxa uu ugu baaqay dadka Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan gurmadkaasi. maanta halkan waxaan u joognaa munaasabad Hormuud Salaam Foundation ay ku guddoonsiin doonto $50,000 waan ugu talagalnay inaan ku biirino gurmadka loo sameynayo dadka ay saameysay abaaraha ka taagan gobolka Gedo anagoo lacagtaas ku wareejin doona mu'asasada ama hay'adda Al Rahma Foundation oo ah hay'ad ka shaqeysa gobolka Gedo ka shaqeysa arrimaha horumarinta iyo arrimaha bini'aadanimada intaba muddooyinkii soo dhaafayna ka waday biyo dhaamin iyo gurmad kale iyo gargaar la gaarsiinayay dhammaan gobolada iyo degmooyinka gobolka Gedo oo ay saameysay abaarta ka dhacday gobolka Gedo. runtii kaalmadan aan bixinayno insha Allah taala ma noqon doonto midii ugu dambeysay. gobolka Gedo marxalado kala duwan iyo culeysyo ayuu soo maray muddooyin iyo sanooyinkii la soo dhaafay markastoo culeys soo kordhana dabcan Hormuud Salaam Foundation iyo shirkadda Hormuud guud ahaan waxay safka hore uga jireen gurmadkaas loo sameynayo dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Gedo. insha Allah taala waxaan rajaynaynaa in xaaladaha iyo duruufaha meeshaas ka jirtaan aan aad uga socon doono gaarmadan ama gurmadkan hadda aan bixinaynana aan ku taageeraynana waa bilow. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan u weydiinaynaa inuu culeyska iyo dhibka iyo haraadkii oonka ka dulqaado.
madaxa fulinta Al-Raxma Foundation Maxamed Aadan Waadi ayaa gudoomay lacagta 50,000 ee doolarka Mareykanka ah oo Hormuud Salaam Foundation ay ugu talagashay dadka ay saameeyeen abaaraha iyo biyo la'aanta ka jirta gobolkaasi Gado. waxa uuna ugu mahadceliyay Hormuud Salaam Foundation siday ugu jawaabtay baahida ka jirta gobolka Gado. waxa uu ka codsaday dadka Soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada inay ka qayb qaataan u gurmashada dadka walaalaheen ah ee ay abaaruhu saameeyeen. xafladan qiimaha badan ee soo abaabushay Hormuud Salaam Foundation oo ah xaflad ay anaga Al-Raxma ah ay nagu wareejinaysay lacagtaas loogu talagalay abaaraha gobolka Gado oo biyo dhaamintii iyo waxyaabaha la xiriira insha Allah taala oo lacag 50,000 oo dollar ah waa ku mahadsan yihiin runtii damiirkaas iyo damqashadaas iyo walaalnimadaas guud ahaan shirkadda Hormuud iyo qaybaheeda kala duwan iyo si gaar ah Hormuud Salaam Foundation mar walbaba sida la wada og yahay guud ahaan dalka Soomaaliya dhibaatooyinka ka dhaca ha noqdaan cudurro ama abaaro ama gaajo ama agoonta si fiican bay uga qayb qaataan si gaar ah sida uu sheegay gudoomiye Cabdullaahi gobolka Gado runtii dhibaatooyinkii soo dhacayay oo barakac ama dagaalo saameeyeen ama abaaro way ka qayb qaadan jireen waxayna ka mid tahay runtii qayb qaadashadooda iyo arinta inay mar walba u taagan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu miisaanka xasanaadka ugu daro waxaan ilaahay weydiisanaynaa in uu mar walbaba waafajiyo sidaas wanaagsan ee dadkooda ay ula damqanayaan ilaan ayaga waxay qayb ka yihiin bulshada waxay qayb ka yihiin gobolka Gado waxay qayb ka yihiin Soomaaliya waxay qayb ka yihiin guud ahaan runtii meel walba ay ka shaqeeyaan waxay ku celshaan qaybtii samafalka ahayd arintaasi waa ku mahadsan yihiin anagana ilaahay subxaanahu wa tacaala culayska guud ee abaarta noo fududeeyo runtii raxmadda iyo naxariista ilaahay baa looga bixi karaa subxaanahu wa tacaala roob inuu noo keeno meel fiican ayay maraysaa shaqadii mu'asasatu Al-Raxma ee waday biyo dhaaminta hadda ugu darnayd runtii waan u kaalmaysan doonaa lacagtaasi wax weyn bay noo taraysaa 50,000 waxa weeyaan meel weyn iyo wax weyn bay ka soo bixi doontaa insha Allah tacaala. Hormuud Salaam Foundation ayaa xilli walba gacan weyn ka geysata ka qayb qaadashada u gurmashada shacbiga Soomaaliyeed xilliyada ay soo wajahaan abaaraha. waa inaad hubisaa halka aad ku nasanayso inay ku habboon tahay naftaada. Ansa Home waa halka aad ka helayso agab heer sare ah waxayna ku haysaa sidka fadhiga Smart waa fadhi raaxo dhameystiran. fadhiga Dorian waxa uu ka samaysan yahay dun jilicsan iyo mid liinan ah oo aad isku bedelan karto. fadhiga Vienna nashqadiisa cajiibkii taabashadiisa jilicsan. sariirta Astoria waxay la jaan qaadaysaa dooqa shakhsiga. jiifka Ornaldo oo si cajiiba loogu nashqadeeyay alwaax qolkaaga siinaya muuqaal qurux badan. sariirta Simena waxay macno iyo muunad ku kordhinaysaa qolkaaga jiifka. kama marna halkaasi fadhiga qadada oo qayb ka qaadanaya bilicda gurigaaga. Ansa Home ugu hagaag guri habaysan oo kugu habboon. shacabka ku nool magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa aragtiyadooda ka dhiibtay shirka maanta ka furmay magaalada Muqdisho iyo waxyaabaha laga rajayn karo. wariyahayaga Safa Cusmaan ayaa microphone-ka la dhex qaaday. Soomaaliyey dareen ma leeyihiin dib u heshiis hadalkooda daboolnayo dadka aan ka qari jiray baan daa ka rogayaa. Soomaaliyey dareen ma leeyihiin dib u heshiis dib u eega daaraha burburiyay calanka deebayso dib u eega masaakiinta dibidaha jirta ee daayacnimadeena dulku guur waxay naga dhigayso dawlad laama. saacadaha soo socda waxaa magaalada Muqdisho si toos ah kaga furmayo shirka madaxda maamul goboleedyada dalka iyo madaxda dawladda Soomaaliya oo horey u iclaamiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. shirkan ayaa socon doona muddo 2 maalin ah iyadoo lagu gorfayn doono xaaladaha siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka. sidoo kale shacabka ayaa soo dhaweeyay shirkan iyagoo sheegay in ay ka filayaan madaxda halkaas isugu timid in ay ka soo baxdo waxyaabo muhiim ah isla markaana horseedaya in dalkani uu doorasho aado. waa kuwan qaar ka mid ah shacabka caasimadda ku nool oo la hadlay telefishinka 5TV waxa ay yiraahdeen alada meel isugu timaad dulduleel badan waa iska jira laakiin shirka waxaan ayidsanahay in lagu heshiin doono waayo dhibaatooyin badan la soo maray ninkii dameer loo Soomaali ka naxayo kullay waa shirka waa taxgiilna hadda ninkii oo dhan kale u birqaayana waa ka laakiin Soomaalida ma jarooso waagii dawladda Maxamed Siyaad waxa la dhigi jiray malaha waxa la yiraahdo ma jarooso 10 nin ilaa 5 nin
toban kala raaca ama shanta lama raacay laba nin iyo saddex nin oo mucaarad noqotay u maleyn maaha ee kolley Soomaaliya in uu lugo-ayso ani waxaan leeyahay shirka in lagu heshiinayo ilaa taa u maleynaa marka Soomaalida waxaan leeyahay Soomaaliyey dareen ma leeyihiin dib u heshiiye hadalkooda daboolnayo dadka aan ka qari jiray baan daah ka rogayaa Soomaaliyey dareen ma leeyihiin dib u heshiiye dib u eega daaraha burburiye ee calanka deebayso dib u eega masaakiinta dibidaha jirta ee daayacnimadeena dulku guur waxay naga dhigisay dawlad laama caalamka oo dhan ayaa dabcan maanta ku hayo shirka maanta ka furmaya magaalada Muqdisho gaar ahaan macnaha aan dheey xirada xalano marka shacabweynaha Soomaaliyeed maanta dabcan indhaha waxay ku hayaan shirkaas ma noqon doona mid dhalo oo dabcan ummadda Soomaaliyeed ay tiinka dabcan ay sugayso ee ummadda Soomaaliyeed gudo iyo dibadba in macnaha natiijo fiican ay ka soo baxdo waxa dareemi kartaa shirka inuu dabcan baaqday kow maaha laba maaha saddex maahan ilaa 5 mar maanta dabcan 6 ku tahay marka insha Allah dabcan hadii Ilaahay waxaan dabcan shacabka Soomaaliyeed haddaan nahanay gudaha iyo dibadda baan ka rajaynaa shirkan in uu noqdo shirkii dabcan aan dheey ummadda Soomaaliyeed ay isku faanto khilaafaadkan dabcan soo jiitamaay iyo mucaarad iyo muxaafid iyo intaba dabcan aan dheey midowga musharaxiinta dhammaan in la isku fahmo dabcan taas waxaan xusid mudan oo kale oo lagu darayaa maanta dabcan waa maalin aad iyo aad ummadda Soomaaliyeed muhiim ugu ah dabcan ummadda Soomaaliyeed maanta waa in dabcan gudaha iyo dibadda u soo duceeyaan shacabka dabcan hadii yihiin dabcan waa dareemi kartaa waxa ka jiro cudurro meel walba marka waxaan dhihi lahaa shacabka Soomaaliyeed maanta waa maalin gaar ah waa maalin xusuus mudan ha loo soo duceeyo gudaha dibadba waxaan leeyahay Soomaaliya noolaato marka ugu horreysay Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu Ilaahay si nabad ah noogu soo gabagabeeyo oo wax macquul ah oo maaragtay ummadda Soomaaliyeed dan u ah ay ka soo baxaan yaan marka hore rajaynaynaa madaxda dawladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada waxaan ka codsanaynaa inay ijiidiya aan ku jidi ay meel iska dhigaan danaha ummadda Soomaaliyeed laga shaqeeyo doorashada la aado ummadda Soomaaliyeed wax dan u ah laga soo saaro yaan ka codsanaynaa anigu waxay la tahay shirkan door hore ayuu baaqday marka haatan hadduu qabsoomo in la isku afgaran doono ayay la tahay haddii la isku afgartana waxaan filayaa in wax fiican ay ka soo bixi doonaan oo ah in lagu heshiiyo arrimihii hawl hore aan loogu heshiinin in la heshiiyena hadda cid walba ayay dan ugu jirtaa cidda hadda madaxda dalka ganacsatada culumadiinka dadka deegaanka annaga wax walba cid walba ayaa dan ugu jirtaa marka aad ayaan u soo dhaweynayaa arrintaas arrinkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo dawladda Mareykanka ay sheegtay in madaxda maamul goboleedyada oo dhami aysan ka bixi karin magaalada caasimadda ay Muqdisho ilaa la gaaro xal horseedaya in dalkani doorasho uu aado Safiic Ismaan Cabdulle 5TV magaalada Muqdisho sidoo kale shacbiga magaalada Boosaaso ayaa iyana waxa ay muujiyeen ra'yigooda ku aadan shirka maanta ka furmay magaalada Muqdisho wariyaheena Cabdiwali Arcade ayaa mikrofoonka la dhex qaaday dadka magaalada Boosaaso ku nool qaarkood warbixintaana inoo soo diray waxaa maanta la rajaynayaa caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho inuu ka furmo shir looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka shirkan oo ay ka soo qayb galayaan madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha dalka iyo madaxweynayaashii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya haddaba qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Boosaaso aanu ka weydiinay aragtida ku aadan sida ay u arkaan shirkan ka furmaya magaalada Muqdisho maalintan waxay shacabka ku dhaqan magaalada Boosaaso baaq u direen dhinacyada ka soo qayb galaya shirkan iyaga oo ku dheeraaday in laga wada shaqeeyo siday u qabsoomi lahayd doorasho xalaal ah iyo xasiloonida dalka in laga wada shaqeeyo waxaan hadaladoodii ka mid ahaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaan ugu baaqayaa shirka ka socda magaalada Xamar ama lagu baaqay in la isugu tago lagu heshiiyo oo wax maslaxada ummadda Soomaaliyeed la eego oo aan gorgortin iyo dano gaar ah in aan la isku qaban in walba dadkiisa meesha uu ka arki waayo maaragtay masax maaha waa in danta loo turaa dadka loo turaayo meesha laga yimi loo turo weey meesha laga yimi in loo turo weey arrinta aan soo jeedinaynaa intay ciidaha is haya taas aan soo jeedinaynaa ragga isku haya Xamar isku haya qaybo meel fadhido waxaan leenahay war midooba oo dalka ilaaliya بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على النبي سيدا سويو ونودو كجري ayaan anagu ku raacsannahay oo maartay aanu ku waafaqsannahay
in shirka la galo oo lagu heshiiyo oo masaalixda caamka ah laga doorbiyo masaalixda danta gaarka ah nin walbana maanta xaajada waa ogyahay Soomaaliya waa ka warhayaa dadka Soomaaliyeedna waa laga warhayaa shacabkana waa laga warhayaa ma garataan dadka waxaan doonaynaa marka ummadda madaxda gobolada iyo dhamaanba inay ummaddu waxay rabto ay waxa weeye ay ku hagaan dalka oo ku maamulaan oo ay shirka la tagaan oo ay waxa weeye dalka ku metelaan oday boosas ka soo hadlaaya oo muumin Ismaaciil yiraahdo waxa shirka ka rajeynaya in wax fiican oo la isku raaco oo Soomaaliyeed ka soo baxo ka soo baxo baa ugu ducaynaya حاجة عشان صوب wax wanaagsan in ka soo baxo oo dawladda Soomaaliya ka soo baxdo iyo doorasho xalaal anigoo ah Maxamed Maxamuud Shire shirka waxaan ugu baaqayaa in wax wanaagsan ka soo baxaan oo Soomaaliya isku raacdo ilaahay idankiis oo doorasho leh xalaal ah dawladda lagu taageerayo dawladda Soomaaliya waa taageersan magacaygu waa Maxamed Gacamay waxaan joogaa magaalada Boosaaso shirka loo yahay shirkii maanta taariikhdu tahay 22 bisha March 2021 waxaa furmaya shirkii kama dambaysta ahaa madaxda Soomaaliyeed ku heshiin lahaayeen dalkuna doorasho ku aadi lahaa shirkaas waxaan ka rajaynaynaa inay wax khayr qaba oo miro dhal ka soo baxaan waxaan rajaynaynaa inuu noqdo shirkii ugu dambeeyay oo dalku doorasho ku aadi lahaa dhammaan madaxda qaranka maamul goboleedyada dhammaan waxa u baaqanaa inay maanta u tanaasulaan shacabka Soomaaliyeed dalkan doorasho aada cid kastoo shirkaas caqabad ku aanan hortaagnaa waxaan ugu baaqanaa inay ka tanaasulaan oo shacabka u tanaasulaan Soomaaliyeed bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waa maalin muhiim u ah ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaaneen waxaan soo dhaweynaynaa shirka maanta ka furmi doona insha Allah Muqdisho ay wada joogaaneen maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka madaxdeedii waxaan insha Allah rajaynaynaa inay war fiican ka soo bixi doontaan oo shirka la isugu yimaado aad baan u soo dhaweynaynaa marka waxaanu madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ka codsanaynaa maadaama shacabka Soomaaliyeed nahay inaanay naaficayn in shirka lagu kala yimaado waxaanu rajaynaynaa insha Allah wax khayr inay ka soo baxaaniin waxaanu codsanaynaa inay joogaan ilaa inta meel dhaxaad shirkaas isfahan lagu gaarayo isku soo wada duubo shirkan ayaa ku soo beegmaya xilli dalka uu ku jiro xaalad xasaasi ah iyadoo ay jirto khilaaf u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada si kastaba ha ahaatee shacabka Soomaaliyeed ayaa u dhagtaagaya in dalka uu helo xasilooni shacabka ayaa u dhagtaagaya si kastaba ha ahaatee shacabka ku dhaqan Soomaaliya ayaa u dhagtaagaya in ay dalku ka dhacdo doorasho la isla og yahay Cabdiwali Maxamed Barre 5TV magaalada Boosaaso kulan looga tacsiyeynayay ehelada iyo bulshada Soomaaliyeed geeridii ku timid Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi ayaa ka dhacay Minnesota inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay ha u naxariisto madaxweynihii afraad mudane Cali Mahdi Maxamed jannadiina Allah ka waraabiyo waxaan soo taagay insha Allah maanta isugu nimid تعسي أن تعسيني إنه مدحويني هوري علي مهدي محمد إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون maalinta uu dhintay oday cali meel baa itaabatay runtii ninaan aad isugu dhownaho ahay odagiina soo barbaariye u ahay markaa runta idiin sheego meel baa yara maaragtay si iga noqotay nin abwaan hoon aan jecelahay oo runtii aan kelimadiisa aan jecelahay ama gabagiisa aan jecelahay ayaa ii soo qoray tiir baa jabay intaas bisoo ii soo qoray tiir baa jabay waxay igu noqotay marka waxay iga adkaatay dadkii beejka iyo labada soo qoray iyadaa iga adkaatay qalbigaygay ku dhacday walaalkeen ama adeerkeen madaxweyneheenii Cali Mahdi inaan halkaan uga tacsiyadeyno baynu dhammaanteen halkaan isugu nimid ilaahay waxaan uga baryayaa dambigiisa iyo dambiga waalidiintiisba inuu dhaafo ilaahay inuu qabriga u nuuro waxaan tacsida iyo tiiraanyada la qaybsanayaa dhammaan ehelka iyo asxaabta iyo dhammaan idinka waxaana la ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto madaxweynihii hore Cali Mahdi anaga adeer Cali waxaan ognahay bini aadanka ayaana marqaati ah
marka inuu wanaag ka tegay maxaa la yiraahdaa aabbo Soomaaliyeed ahaa oday Soomaaliyeed oo ahaa intaas baa maanta qiimo ugu filan kulli adduunyo cid joogaysa malaha ilaahay jannada firdaws ha geeyo qabrigiisana nuur Allah ha ka siiyo intuu ka tegay oo aan annagu ka mid nahayna sabri iimaan waasica Allah naga siiyo waxaan Soomaaliyo idil kala qayb qaadanayaa tacsida madaxweynihii hore mudane Cali Mahdi Maxamed Allah u naxariisto qabrigiisa Allah u waasiciyo intii uu ka tagayna sabri iimaan Allah ka siiyo anagana ilaahay gadaashiisna ma fidneeyo waanu u ducaynaynaa in ilaahay naxariista janna uu ka waraabiyo in ilaahay qabrigiisa waasic uga dhigo in ilaahay albaabada jannada ilaahay u ballaqo ayaan ugu ducaynaynaa maxaa yeelay Cali Mahdi marxalad adag oo qof ka bixi karta ay adag tahay ayuu ka fogaaday qabyaaladda ayuu Soomaali kan u dhow iyo kan u shisheeyo inuu labada gacnood qabto ayuu ku mutaystay waxaan leeyahay Allah u naxariisto gaar ahaan aniga waxaan tacsiyeynaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaan kaloo tacsiyeynaa qaasatan familka reer Mahdi ayaan u tacsiyeynayaa wahagaag daawadayaal xubintaasi cayaaraha ayaa ugu dambeysay wararkii caawa ee 5TV anigoo Foos Ciidah iyo waliba Idaaja Xasan Cade ayaa si wada jira idin kula socodsiineynay Cabdiraxmaan Atorana waa uu farsameynayay tan iyo kulan dambe nabadgelyo السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا ورابي وهرات سرعي. هاي. وعكلوا إذا وجدنا ويلو أنت ودنا الصوها يسين هل بعدين ما ركتين. هذا. جيل بدنا صارني. هذا إلا قرمي كام قنتاي. هذا الشيء إذا صدع مع الماضي كم قنتاي. استنى عيلة هذا. استلاب. ما عاد عسده. هذا سوق القاري جيلك والقورة ديني. ديارو طبعا الوهاية ديارو هرمود فوجي انترنت حوار السر له جوب والبه يجور كستا هرمود اسكو حراها برشدا